hadalka dadweynaha haata ku soo biro ka mid noqo asxaabta ku xidhan adiga oo saaraya subscribe si aad ula socoto barnaamij walba la soo geliyo. Salaamu calaykum. Ku dhawaad muddo 20 sano ah xeeladii ugu la yaabka badneed ee lacag lagu dhaco iyada oo la adeegsanayay wax waqtigaasi lagu tilmaamay sixirkii madooba iyada oo la bar tilmaameystay bangiga Dubai ee Islaamiga ah iyada oo isla markaana laga dhacay lacag gaadhaysa 242 milyan oo dollar. Waxa laga yaabaa inaad qisadan hore u maqashay amaba se aad hadda ka hor maqalba. Waa qiso aad u la yaab badan oo soo jiidasho xambaarsan marka aad maqasho sixir wax lagu dhacay. qisadu waxa ay ku bilaabatay kadib markii uu muwaadin reer Maali ah uu safray Imaaraadka ninkaasi oo lagu magacaabo Vondenga Sesko iyada oo ay ujeedada safarkiisu ahayd inuu bankiga Dubai ka dalbado deyn si uu uga gato gaari. Markii uu Imaaraadka soo gaaray ayaa waxa uu dalbaday in lala kulansiiyo maamulaha bankiga. Maamulihii ayaa markii uu warkii soo gaaray ka labalabayn aqbalida codsigiisa. Maamulaha oo magaciisa lagu magacaabo Maxamed Al Ayyub ayaa waxa uu sameeyay intaasi kadib casho sharaf aad u qurux badan iyadoo ay muhiimad ahayd inay kaga wada hadlaan arrimaha dhinaca deynta. Waa sida uu BBC-da u sheegay ninka ay qisada ku socoto ee Sesko. Intaasi kadib markay cashada u wada fadhiisteen ayaa uu Sesko guda galay maleegida qorshihiisii uu damacsanaa. Markay maamulihii wada fadhiisteen ay muddo sheekaysteen ayaa waxa uu sheegay in uu wato awoodo dhinaca sixirka ah taasi oo uu ku kala dabari karo waxyaabo fara badan sida inuu awoodi karo inuu lacagaha double ka dhigo. Waxa uu sheegay maamulihii in haddii uu u baahdo uu lacagihiisa uga dhigi doono 2 jibaar. Maamulihii ayaa ku yidhi bal ka waran haddii aynu mar kale kulanno oon anna lacago sito si aad awoodahaaga wax iga tusto. Ninkii ayaa arrinkii ka ogolaaday. Maamulihii bankiga ayaa ninkii warkiisa rumaystay wuxuuna fadhigoodii labaad noqday gurigii maamulaha maqsin ka mid ah ayay wada fadhiisteen. Markii ay muddo wada fadhiyeen ayuu hal mar ninkii si kadisa qayliyo sawaxan isugu daray. Waxauna uu sheegay inay jiminkii cadhoodeen haddii laga sii cadhaysiyana aysan ogolaan doonin inay lacagaha laba jibaaraan ay lacagahaasi lacago kale ugu dul daraan. waxauna ku yidhi maamulihii aniga ayaa jimanka la xaalaya lacagaha intaad igu soo wareejiso maqsinka isaga bax. maamulihii bankiga ayaa warkii rumaystay isagoo aaminsanaa inuu lacagahaasi lacago kale ugu dul dari doono. lacagihii intuu u dhiibay ayuu maqsinkii uga dhex baxay. maamulihii bankiga ayaa waxa uu leeyahay markii aan maqsinka dibadda uga baxay waxaan maqlay buuq iyo sawaxan iyo qaylo ninkii iyo jimanka oo wada buuqaya. waxaan buuq iyo qaylo maqlaba hal mar ayuu jawigii isbedelo la aamusay. waxaanan u galay lacagtii oo ay lacago kale ku dulbiireen. Ayub ayaa markuu arkay lacagihii oo ay lacago kale ku dulbiireen farxad iyo qosol kala joojin waayay. intaasi kadib maamulihii waxa uu si dhab ah u aaminay inuu Sesko awood u leeyahay inuu lacagaha laba jibaari karo. arrintii ayaa cirka isu shareertay. waxauna maamulihii bankigu bilaabay inuu lacagihiisii u diro Sesko isagoo isla markaana aaminsanaa inay lacagihiisu u soo laaban doonaan iyaga oo laba jibaara. sida ku qoran waraaqihii maxkamadda sanadadii u dhaxaysay 1995 ilaa 98 Ayub ayaa lacaga aan tiro yareen ku diray akoontiyada uu Sesko daafaha dunida ku kala leeyahay. sidoo kale isla sanadii 1998 ayaa waxa soo ifbaxay warar sheegaya inuu bankigii ku yimid hoos u dhac aad u ballaaran kadib markii uu wargeys ku yaala Dubai uu sheegay inuu bankigii ku yimid khalkhal iyo hoos u dhac dhinaca dhaqaalaha ah. intaasi kadib macaamiishii bankiga ayaa waxa ay bilaabeen inay lacagahoodii ka qaataan. hase ahaatee bankigii ayaa dadkii waxa uu sheegay inay xoogay cillad yari jirto cilladaasina muddo yar gudaheeda lagu xallin doono. waxayna u sheegeen dadkii inaysan haba yaraatee wax khasaara ku iman doonin lacagahooda. hase ahaatee warkaasi ma uusan noqonin mid dhab ah. isla waqtigaasi buutaanka waxa uu joogay meel aad u dheer waxa uuna ku raaxaysanayay lacagihii. markuu ogaaday inay lacago badan u soo xaroodeen waxa uu joojiyay socodkiisii badnaa ee ku aadanaa dhinaca iyo Dubai. haddii aynu dib ugu laabanno waqtigii uu ka dhaadhiciyay maamulaha bankiga inuu yahay saaxir dhowr maalmood kadib waxa uu isla markiiba u safray dhinaca iyo dalka Mareykanka. waxauna juhdi iyo dadaal badan ugu bixiyay sidii uu banki akoon cusub dalka Mareykanka uga furan lahaa. waxa uu maalin maalmaha ka mid ah toos u abaaray banki ku yaala New York oo lagu magacaabo City Bank. bankigii ayuu toos u galay iyada oon wax ballan ah hore loo lahayn. waxa uuna la kulmay gabadh u qaabilsan dhinaca xawilaadaha. isfahan kadib gabadhii si kadis ah ayuuba u guursaday. waxa uu caddeeyay dembi baadhaha Mareykanka ah ee loo yaqaano Alan Vine
inay gabadhaasi door muhiim ah ka ciyaartay xidhiidhka iyo isfahanka bankiga iyo ninka. intaasi kadib waxay isafkartay Sisoko iyo Citibank waxaana loo furay bank account. intaasi kadib waxa suurta gashay in accountkiisi lagu soo shubo in ka badan $100 milyan min Imaaraadka ilaa iyo dalka Mareykanka. Dubai Bank ayaa dacwo ku soo oogay Citibank taasi oo ahayd inuu qaabaan ogolaanshiyo buuxda ka haysan ugu wareejiyay lacagtaasi oo dhannayd $151 milyan. gabadhii xaaskiisa noqotay ee ka caawisay in lacagta laga xawilo min Dubai ilaa iyo Mareykanka ayaa waxa uu ku abaalmariyay lacag kor u dhaafaysa $1 milyan. intaasi kadib waxaa rumowday riyadii Sisoko ee ahayd inuu bariga Afrika ka aasaaso shirkad diyaaradeed. waxa uuna soo iibsaday ilaa iyo 3 diyaaradood oo mustacmal ah. waxa uuna ku magacaabay Air Dabia oo ahayd magaca tuuladii uu ku dhashay. Sisoko ayaa waxa uu bilaabay inuu sameeyo ficilo khayri ah. waxa uu bilaabay inuu lacaga aan tiro yarayn sadaqa ahaan ku bixiyo, ha noqoto dalkiisa Maali iyo dalka Mareykanka gudihiisaba. hase ahaatee midaasi difaac umaysan noqon. dalka Mareykanka gudihiisa ayaa lagu xidhay iyadoo lagu eedeynayay inuu bixiyo lacago laaluush ah. qadiyadiisii ayaa maxkamadda fuushay waxaana lagu xukumay 40 maalmood oo xadhiga iyo $200,000. hase ahaatee isla markiiba lacagta waxa si hoos ahaan u bixiyay bangigii Dubai. muddo kadibna dalka Maali ayaa loo dhoofiyay iyadoo la rabay in dalkiisa lagu xidho. hase ahaatee markii uu dalkiisa u tagay ayuu baxsaday. isla waqtiga waxa bilaabmatay inay sheekadii si tartiib ah u fashilanto kadib markii shaqaalihii bangiga Dubai ee Islaamiga ay ogaadeen in ay meesha wax ka qaldameen. sheekadii ayaa marba marka ka sii dambeysay cirkaas ku sii shareertay. saaskana teleefanadii waa uu ka qaban waayay Ayub ayuu dhulkii naxdin la madoobaaday. waa uuna awoodi kari waayay inuu intaasi ka badan sii qariyo. waxa uuna u sheegay qaar ka mid ah asxaabtiisa inuu lacago u diray dalka dibadiisa. saaxiibkii ayaa waxa uu weydiiyay tirada lacagta intay la ekayd. hase ahaatee Ayub oo niyad jabsan ayaa lacagta afka ka sheegi kari waayay. waxa uuna ugu qoray warqad. ninkii saaxiibkii ayaa arrin uusan filaynin uga soo baxday. lacagtii uu meesha ugu qoray ayaa waxa ay ahayd $890 milyan oo dirham, yacni lacag ku dhow $243 milyan oo dollar. cajiib. Ayub ayaa waxa lagu xukumay 3 sano xadhiga ee ahayd khiyaanadii uu sameeyay iyo sixirkii uu rumaystay. ilaa haatan Sisoko Dubai iyo dalka Mareykankaba dambiile ayuu ka yahay, balse dalkiisa ayaa xorriyad siiyay. waxayna diideen inay muwaadinkooda dawlado kale gacanta u geliyaan. waqti xaadirkan Sisoko waxa uu ku nool yahay tuuladiisii. maray BBC-du gurigiisa ku booqatay ayaa waxay ugu tageen isagoo ku naaloonaya guri aad u ballaadhan iyo ilaalo badan oo ilaalinaya. gabadh ka socota BBC-da ayaa waxa ay weydiisay arrinka ah maxaa ka jira inaad Ayub la kulantay isla markaana aad sixirtay oo lacagihiisii kala wareegtay. arrimaha sixirka ee la sheegayo se miyaa taqaanaa? mis sur la magie noire. Oui. Quand quelqu'un a ce pouvoir comme ça, pourquoi tu travailles? Tu n'as qu'à rester là, à penser à toutes sortes de banques du monde. Aller penser même aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, même en Afrique ici. waxauna ugu jawaabay Marwo, haddiiba uu shakhsigu xambaarsan yahay awoodo noocaasiya muxuuba la shaqaynayaa isu dhibaya. haddii aad awoodo noocaasiya aad leedahay waxaba kugu filaanaysaa inaad adiga oo goobtaada joogta aad dhacdo lacagaha caalamka yaal oo dhan, ha noqoto Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, xataa Afrikadan aan joogo. taasi oo micnaheedu ahayd inuusan Ayub sixirin. si kastaba ha ahaatee Sisoko waqti xaadirkan waxa uu si xor ah ugu dhex nool yahay tuuladiisa, balse dhinaca Interpol waxa uu ka yahay dambiile loo baahan yahay in gacanta lagu soo dhigo. taasi oo loo haysto inuu sameeyay mid ka mid ah dambiyadii ugu waaweynaa ee lacag lagu dhaco. aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. maanta barnaamijkeennu halka ayuu ku ogyahay. haddii aad ku cusub tahay janalkan dadweynaha, haatan ku soo bir oo subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyada dambe aynu soo gelin doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. barnaamij walba la soo geliyo. يا